السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيق وخديجة علي وحانا هاي بايع مشتر دقن قبل كمينيسوتا و استاكتي سيدي عن قرب وصين لهين بايع مشتر دا dadkeena afrikaaniinta ama hadana ama communitygeena Soomaalida u gaarka ah aanu garab ugu noqon lahayn saameyntii uu ku yeeshay COVID-19 sidii loo soo rogay sharcigan in guryaha la joogo oo businessadii baac mushtarada la xiro dad badan baa arintaas aad iyo aad u saameysay oo communitygeena kamid ah marka wadankan waa wadan dib badan waliba dadka madowga u sii dib badan iyo dadka Mareykanka cusub laakiin arinkan markuu dhacay waa arin la yaab ah oo adduun weynaha si walba u saameeyay marka anaga waliba dadkeenan Soomaalidan cusub oo ku cusub dalkan aad iyo aad si gaar ah ayuu u saameeyay meelaha ay ku jireen oo baaci mushtarkay ku sameeyeen waa meelo kira ah marka kirooyinkii baa ku taagan waxyaalo badan oo biilal badan oo kirooyinka iyo ma garatay iyo nalkii iyo biyihii waxyaalo isticmaalay waxyaalo badan adigu culays badan baa saaran oo u baahan businesskin haday wax soo galeenin waa in lacagtaas ay meel ka timaado marka waxaanu la shaqeynay ayaamahan oo dhan state-keena iyo city-geena iyo federaalka labadaba kulli waxay dhaheen waxaan siinaynaa waxyaalahan dadka ku caawino oo sidii inta arimahaanayto oo orderradan executive order waxa la dhahaa governatorehena soo rogay inay dadka guryaha joogaan businessada la xiro sidii cudurkan faafintiisa la iskaga ilaalin lahaa marka saas la aldigeed waxaan dareenay in dadkeena waxa la wada qaybsanayo iyaguna wax laga siiyo markaas waxa isku yimi 3 group oo waliba hormood u ahaayeen wadaadadu waxay isku keeneen xirfadlayaasha baayac mushtarka marka waxaan go'aansanay in task force waxa la dhaho aanu dhisno oo ka shaqeynaysa macluumaadka ay community-ga u baahan yihiin aniga marka qaybteeda waa qaybta baayac mushtarka baan la shaqeynayay marka shaqooyin badan baan qabanay dad badan baanu lacagaha deynta la raadinay dad badan baanu grants waxa la dhaho oo lacag ma aha iyada deyn laakiin waa lacag condition un bay leedahay hadda ka soo bixi kartid la siiyo dadka baaci mushtarka dad baa helay laakiin dad badan baa wali helin arinkaas laftirkeeda shaqadeeda wali waanu ku daba jirnaa waxaanu la kaashanay hadaanu nahay task force-da ileen anagu laftirkeena volunteers baanu nahay dadkeena ka shaqeynaya dawladda la shaqeeya ha kamid ahaato xafiiska Ilhaan ha kamid ahaato xildhibaanada Maxamuud Nuur iyo Hodan iyo wasiir ku-xigeenka oo qaybta shaqada abuurka iyo dhaqaalaha state-keena jooga Xamse Warfaa oo aad iyo aad kulligood si gacan weyn nooga siiyay meelaha sidii ma garto waxyaalaan loola hadli lahaa wixii waraaqa ama wixii aan u baahano ama codeyn ama garab ana weyna garab istaageen marka waxyaalahan ka shaqeynay anaga badana waxa weeyaan siday businessadan hadhowto ku soo laaban lahaayeen sidii ma garatay ay community-gii meeshay gaarsiisanayeen sayna dib uga dhicin ee hore uga sii socdaan